السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصشو waxay kamid tahay waxyaabaha dabiiciga ah ee wax lagu daweeyo sidoo kalena waxay kamid tahay khudradda aynu sida joogtada u isticmaalno sidoo kalena waxa jira xanuuna ay ku fiican tahay oo si cajiib ah ay u daweyso kuwaas oo aan idinka soo qaadi doono shan kamid ah kuwaas oo kala ah kow dhaga xanuunka basasha waxa lagu daweeyaa dhaga xanuunka iyadoo la raacayo qaabkan haddii ay dhaguhu ku xanuunayaan dhag ama labada dhagoodba waxaad soo qaadaysaa jeex yar oo basala oo aad diirka ka dhishay ama diirka ka fiiqday kadibna waxaad ku laabaysaa codbi ama aad dhex gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa dhagtaada si aad hadhow uga soo saarto markaad geliso waxaad ku haynaysaa 10 daqiiqo kadibna waad ka soo saaraysaa waxaad ku celcelinaysaa muddo 3 cisho insha Allah tacaala waxay si cajiib ah kaaga daweyn doontaa dhaga xanuunkii laba qaniinyada shinnida waxaynu ognahay qaniinyada shinnidu inay keento laba arrimood oo kala ah meesha ay qaniintay inay barariso iyo sidoo kale goobta ay qaniintay inay ku samayso xumad badan haddaba hadiiba shinnidu ay ku qaniinto oo aad heli karto isla markiiba basal waxaad soo qaadaa jeex yar oo kamid ah basasha oo diirka aad ka fiiqday ama aad ka dhishay kadibna waxaad saartaa halka shinnidu ka qaniintay waxay ka hortagaysaa inay meeshu bararto sidoo kalena waxay si degdeg ah kaaga beenaysaa xanuunka ay reebtay qaniinyada shinnidu 3 gubashada jirka basasha waxa lagu daweeyaa gubashada jirka ama meesha dabka uu taabtay hadiiba ay dhacdo in meel kamid ah jirkaaga dab uu taabto ama aad gubato isla markaana aad heli karto basasha waxaad soo qaadaa basasha jeex kamid ah oo aad fiiqday ama aad dhishay kadibna waxaad saartaa halkii dabku ka taabtay waxay ka qayb qaadanaysaa inay meeshaasi degdeg u bogsato sidoo kalena waxay ka hortagaysaa nabarka halka gaadhay inaanu jirka ku sii faafin waxa kale oo ay ka beenaysaa xanuunka dabka isla markiiba 4 xumada jirka ama xaraaradda jirku marka ay kacdo waxa kulaylka iyo xaraaradda jirka lagaga biyaa basasha adigoo raacaya qaabkan waxaad soo qaadaysaa 2 jeex oo kamid ah basasha kadibna waxaad gelinaysaa halka u dhaxaysa kabtaada iyo cagta kadibna waxay halka kuugu jiraysaa muddo ku dhawaad saacada waxaad arki doontaa jirkaagu siduu isu bedelo iyo siduu uga boo kulaylkii iyo xaraaraddii jirka ku jirtay 5 ka saarista sunta ee jirka basasha waxay kamid tahay waxyaabaha jirka ka saara sunta saas darteedna waxa fiican cunto kasto aad cunayso inaad ku darto basasha aad baa ugu mahadsantiin daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh